halka mid wuxuu dhahay waa dileynaa halka midna wuxuu dhahay dilimeyno meydna sheegi maayo aan dilno iyo dilimeyno isku dagaaleen iyo ka isku fahmi waayay markaas dadayga tagayeen inkastoo qof aday waa lagu ala bireeha la dhahay isa xaalad xaamilanimana aan ku jiray hal kamidaha ay iga qabtay gacnaha halka kaleetana uu kala mooday halka kaleeto waa soo bedelay kan kaleeto soo bedelay kan kaleene kii kaleeta gacnaha u wareegay waa idin salaamay jamaahiirta aynu halkan ku walaalownay muuqaalkan waxaan ugu hadli doonaa in Soomaaliya ay marayso marxalad xishoodka iyo diinta intaba aan lagu tilmaami karin dariska rasuulka sallallahu alayhi wasallam waxa uu gaaray heer uu dhaho inaan isdhaxalsiiyaan oga baqaaya xaq ay isku leeyihiin dartiis dariskaas xaq isku lahaa maantay ragga qaarkood ee Soomaaliyeed ee ahmaqa ah ixtiraamka iyo sharafta iyo darisnimada aqoonin wanaaga iyo walaaltinimada iyo ehelnimada iyo islaamnimada aanan garanayn wuxuushnimada ah bal dhacdadan xanuunka badan leh ila daawo waxaan ku qiyaasan garan waayay hooyo Soomaaliyeed oo dariskaaga ah uur leh inay laba nin raga intay u soo galaan ay kufsadaan kuna murmaan ayagoo kufsigii dhex socdo oo ay wadaan jariimadii kufsiga isla wadaan inay ku murmaan aan qalnoon biraynoon dilno si aan ceebtaan iyo kufsigan aan u sameynay oga badbaadno subhanallah war halkaynu u soconnaa meeshay u soconno waa halkee cadaab nuuceeba ka dhici karta in dariskaaga aad ixtiraami weysay oo rasuulka noogu dardaarmay inaan isdhaxalna inay ku dhawaatay in hooyo Soomaaliyeed ee la qabo aad ka xishoon weysay in haddana iyadoo xaamilo ah uur leh aad ka sii xishoon weysay haddana inaad ka xishoon weyso inaad sii nabadgeliso oo nafteedii dayso oo haddana go'aan ku gaartay inaad jarjarto ama gowracdo miyaadan islaam ahayn miyaadan Soomaali ahayn miyaadan arxan lahayn miyaadan dhiig lahayn Soomaaliya dawladdu miyaysan awood u lahayn falalka noocan oo kale taa wuxuushnimada ah inay wax ka qabato heer waxaynu maraynaa raggi ay bahalo noqdaan bahalo juhala ah kuwaas oo kale waxa loogu duceeyaa inay nacalada alla ku dhacdo haba ku dhacday way ku dhacday inaad ka xishoon weyso dariskaaga inaad ka xishoon weyso gabar muslimada inaad ka xishoon weyso gabar xaas ah inaad ka xishoon weyso gabar uur leh inaad ka xishoon weyso hooyo Soomaaliyeed oo rafaadsan kaalmadaada u baahan darisnimadaada u baahan inaad cadow ugu soo hormarto aad kufsato haddana aad ku hamisay inaad gowracdo Soomaaliya miyaanan alla loogu baqaynin inuu naxariis iyo nabadgelyo siiyo hadday xukuumadda falalka noocan oo kale taa wax ka qaban weyso ogow cadaabta Allah ina haraynaysa intaysan cadaabta Allah ina harayn fadlan waxaan waxa laga qabto bal ina la daawado dhageysta sida murugada leh hooyadan u hadlayso nacalada Allah ku dhacdo wixisaan u galay nala dhageysto nala daawada saaxiibada qaaliga halka mid wuxuu dhahay waa dileynaa halka midna wuxuu dhahay dilimeyno meydna sheegi maayo aan dilno iyo dilimeyno isku dagaaleen iyo ka isku fahmi waayay markaas dadayga tagayeen inkastoo qof aday waa lagu ala bireeha la dhahay isa xaalad xaamilanimana aan ku jiray hal kamidaha ay iga qabtay gacnaha halka kaleetana uu kala mooday halka kaleeto
waa soo bedelay kan kale oo soo bedelay kan kalena waa kii gartay kale marka taa gacnaha u wareegay waxaa dhibka ii geystay laba wiil oo dhibka ii geysteen mid ka mid ah aboos ila degnaay oo dhaxda lagu dhiftay hal daash leenoo dhexeeyo daashku kusoo boodiyey qolkaygu soo abaariyey oo ii soo galeen labadooda waa ii soo galeen waa gartay labadood markay ii soo galeen aniga waxaan ka war helay ka kordhac leh ka war helay inuu gurigu soo dumaa maleeyahay waa gartay aamus aa lay dhahay xijaab afka lagaga daboolay xijaabka marka afka lagaga daboolay midi aduudka oo lagaga qarufshay waxaa la dhahay suuqa daatira iska jir koob bismillaahi dahabkaa layga furay baraanti iyo waxbaa layga furay taleefanka hamiisi baraantiyaalka iyo hadday iga furteen iyo dahabka ay iga furteen hal kamid aha iga qabtay gacmaha halka kaleetona uu kala mooday waa gartay halka kaleeto waa soo bedelay kan kale oo soo bedelay kan kalena waa gartay kii kale taa gacnaha u wareegay yaa kula joogo marka falkan markuu dhacay waqtiga inuu geeriisa 8 jir la ila jiiftay iyo mid sanad jir aniga dhalay waa fahmay inta kalena walaalkay yaa dhalay waa gartay xilligaas marka maxaa ahayd xaamilo ma ahayd foosho ma ku heysay bal xaaladaas 9 bilood aan ahay xanuun oo yar aan dareemayay waa gartay haddii iga tagayna foosho igu soo xoogaystay waa gartay kadibna maxaa dhacay intii lagu geeyay xaalkaaga soo noqday waa lugaha iga xirxireen iyo gacnaha iyo jaajar iga xirxireen iyo xijaab oo hamiisi xirig leh ee gacnaha iga xirxireen markaas gacnaha iyo lugaha ay si xirxireen xirig jaajarka ilkeyga isaga gooyay markaas xiriga jaajarka ugu tiq badnaaye xiriga kaleetana iska furay markaas nalkan daartay waayahay marka iska furay aniga kini nimanka iyo ko oo hamiisi shooda wataan ay ugu dambeysay aniga ma aqoonsatay waa mir dawalantimiya waa mir dawlan 12 saac amal mise 10 saac afartay walax amal idoo 10 saac afartay walax waay wadaadka masaajidka leeyahay aan soo naaxay waa nalkan daaray waa hamiisi 10 saac afartay walax waa dad dhahay waxaas dhaay banaanka ku dhiiraday banaankan u baxa markaas in irdaha dhan gadaal iga wada xiran yihiin arkay walaalkay xafatiisa markaas aan aaday oo ku dhaweysan oo ii dhaweyd oo iga fogeyn waa galay markaas dhacdada u sheegay saasay dhahayeen halka mid wuxuu dhahay waa dileynaa halka midna wuxuu dhahay dilemeeno meydna sheegi maayo aan dilno iyo dilemeeno isku dagaaleen iyo ka isku fahmi waayay markaas haday iga tagayeen waa iska tageen ilaa ko saas dhahayo oo midida doodka iga qaraafiha igu dambeysay aniga waa gartay waa mir dawalantaba aniga hamiisi midida doodka laga waday ma bireynaa waa bireemayna meydna sheegi maayo idoo leeyahay igu dambeysay aniga saaxiibadayda qaaliga ah aynu ugu cod dhicino aynu sheergareyno albaabka dawladda aynu gaarsiino falalka noocaana haddaanan la sheergarayn la gaarsiin bulshada lagu dhex gubin lagu ceebeyn falkan la gaarsiin way soo badanayaan intay badan lahaayeen waa inaan ka falcelinaa idinkuna hooyada commentiga ugu soo duceeya falkan kuwii geystayna inuu ilaahay jawaab degdeg ka siiyo ku soo inkaara commentiga wax loo naxariista maaha noocan oo kale wax loo damqadana maaha saaxiibada qaaliga inala sheer gareeya videoga aad iyo aad baa u mahadsantihiin